Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ka joogtiin dunida iyo daafeeda magacaygu axmed faarax halkaa nagala socotiina waa mila media production sidoo kale mila high school kusoo dhawaada cashirkii afraad ee softwareka lagu magacaabo Filmora 9 insha allah cashirkeenan afraad daba waxaynu ku baran doonaa sida loo hagaajiyo codka oo leeyahay muuqaalku sida muuqaalka lagu sameeyo background music iyo sidoo kale codkaaga haddii oo meel buuqa aad kusoo duubtay sida aan uga saarnay buuq ayaan ku baran doonaaye u diyaar garow muuqaalka oo dhammaystiran hagaag saaxiibayaal ugu horreyn sida noo caadahayd waxaan samayn doonaa inaan soo gesho softwareka muuqaal si aad usoo gesho waxaan isticmaali doonaa shortcutka la yidhaha control plus i ayaa isticmaali doonaa ama halkan ayaad double click heysan kartaa sida aad markas rabto adigu ayaad yeeli kartaa ani hadda waxaan samayn doonaa muuqaalkan ayaan soo qaadan doonaa kadibna meeshan ayaa waxaa ku dhihi doonaa obi muuqaalka marka halkan obi ku yiraahdo kadibna waxaan keeni doonaa muuqaalka halkan sidoo kale qaybtan waxaan samayn doonaa isla waxaan soo geli karaa maqal ayaan halkan ayadana soo geli doonaa si aan dhowta aan ugu isticmaalo maqalkaas waxa la yidhahda background music si aan uga isticmaalo maqal ayaan halkan soo geli doonaa waa ka gudba aniga maqaladan oo kale dhanba ma rabo maqal kale meel gaar ugu jira ayaan soo qaadanaa kadibna qaybta ay ku qorantahay music ayaan soo qaadanaa kadibna waxaan soo qaadanaa musigan yarka oo ah way inoo ahaato musigas yarka ayaan soo qaadanaa kadibna waxaan samayn doonaa halkan waxaa ujeedin waxaa ugu jira maqal iyo muuqaal wada socdo halkan waxaa ii yaala muuqaalka oo keligiisa muuqaalkan codkiisa haddii aan rabo inaan hagaajiyo waxaan ku khasbanaa marka koowaadba inaan muuqaalka iyo codka kala reebo sida muuqaalka iyo codka kala reebto muuqaalka ayaa dul tegaysaa kadibna waxaa leedahay red click markaad tiraahdo halkan ayaa waxaa ka dooranaysaa touch audio ama waxaad isticmaali kartaa shortcutka la yiraahdo control plus alt plus d ayaa isticmaali kartaa kadib keliga markaasi waxaa kuu kala haray halkan sida aad ujeedidba codkii iyo fideoga cashirka horreeya ayaan kusoo hadalnay qaabka loo kala reebo muuqaalka iyo codka oo hadda inooguma horeyso haddaba saaxiibayaal waxaan rabaa codkaygan inaan sare u qaado ama aan hoos u dhigo si aan taas u sameeyo codka keligiis aan u hagaajiyo codka ayaan halkan geysan doonaa haddii aan rabana soo meeshiisa yaalo waa ku hagaagsan karaaye waxaa samayn doontaa saaxiibayaal mar leetaba adi waxa ku amra laynkaas haddii aad gaabido codkaaga wuxuu noqon doonaa mid laawo oo yaraan doonaa bal haddaba laynkaas markaa u gaabshay codkayga sidoo noqday aynu wada aragno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal hagaag haddaba saaxiibayaal haddii aan laynkan kor u qaado oo aan meesha sare geeyo codkayga markaan sidoo noqonaana ila arag daawadayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu axmed faarax halkaan nagala socotiinna waa bal aan halkaan sii dhaafsho media production sidoo kale mila high school kusoo dhawaada maanta muuqaalkan aynu uga hadlayno hagaag haddaba saaxiibayaal waxaa ujeediin codkii hadba heer inuu gaarayo oo hirarka codka halkaas ayaa kala socon kartaa markaad laynkan soo qabsa adii codka meesha dhaxo meel kale kaasoo kale meel macquul iska geyso oo codkaaga hadhow ha noqdo mid la dhegeysan karo bal markaan ila arag asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal iyo daawadayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu axmed faarax hagaag halkan waa levelka ugu macquulsan ee aan codka ku dhegeysan karo haddaba saaxiibayaal waxaan samayn doonaa aniga codka inta badan hadhowti maaragtay aan u isticmaali doono inaan dheereeyo ama aan gaabiyo ama aan codkaani waxaan rabaa muusigan oo kale inaan soo qaato muusigan ayaan soo qaadanaa kadibna waxaan keensan doonaa halkan codkayga ka hooseeyo muusigan marka waxaan samayn doonaa codkayga meesha ka hooseeya markaa keeno halkan wixii ka dambeeya muuqaalka qaybtiisa wixii ka dambeeya waa iska jaraa control b ayaan dhihi doonaa kadibna qaybtan dambe waa dul tagaa red click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay delete ayaan leeyahay waan iska saaraa si aan markaas kaaga saartid waa select garayna kadibna waxaa leedahay delete ama keyboard computerkaaga ayaad ka dileedaysaa haddaba saaxiibayaal marka hore bal muusigan ila arag asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal iyo daawadayaal meel kastoo ka joogta hagaag waxaan rabaa markaan muusigan inaa codkayga ama muuqaalkayga ugu dhigo background music oo noqdo background ama music meel hoose maraa hadhowtana muuqaalkayga uusan wax saameyna ku yeelan oo muusigi meelo hoose oo ka dhawaaqa si muuqaalkaaga u noqdo mid aad u qurux badan inta badan waa la isticmaala waxaa la yidhahda background music wixii aad doonta markas u isticmaale muusiga laynkiisa ayaad tegaysaa kadibna sidaas ayaad u yaraynaysaa laynka halkaas ayaad geenaysaa haddii laynka hirarkiisu ay u koreeyaan waxay ka micno tahay muusigi waa u dheeryahay haddii meel dhexe ay joogaan meel level dhaxas ka joogaan meel laaw ma adiga qaybtaas u hooseydo ayaad maaragtay wax size in slack aad isticmaali doontaa bal haddana markaan aan soo bilaabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal iyo daawadayaal meel kastoo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu axmed faarax halkaan nagala socotay hagaag saaxiibayaal adii mar leetaba laynka ayaa isu qabanaysaa markasta hoos ayaa usii yaraynaysaa taniintoo muusigu ka gaarayo meel aan aad loo maqli karin muusiga balse la maqlaa hadda bal markaan ayaan waxaa dhihi doonaa baley haddii uu muusigu ku badan yahay laynkaas hoos ayaad wadaysaa haddii uu macquul ku yahana waa sidii aad rabtay bal markaan aynu wada aragno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal iyo daawadayaal hagaag saaxiibayaal waxaa ujeedin muusiga hadda ma ahan mid qaylo badan ama maaragtay aan la dhegeysan karin maaha meel hoose ayuu maraa oo weliba si macquula waa hadda codka keligiista meeshaan ka saaro
muusiga iyo videoga bis ayaan kusoo reebaa si aad bal ila aragtiin muusiga oo keligiisa muuqaalkii oo bilaa coda ayaan maaragtay markaan dhegeysan doonaa si aan u dhegeysano codka meesha waa ka saarayna codka waa kan annaga hore maaragtay u jarna marka horetaba oo recharge audio ugu samaynay marka waxaan iska samayn doonaa codka halkaas ayaan iska geenaynaa kadibna waxaan leeyahay deertaan idaar hagaag waxaad ujeedaa muusigii hoos ayuu maraa oo hadda aniga codkayga wax saameyn ah kuma uu yeelanayo qaybtaasna waxaa la yidhahdaa background music waxaa rabtaa markaa cod aan soo duubtay oo waxaa ku maaragtaa yeelan karaa qarara ama buuq ayuu yeelan karaa qaabka looga saaro ayaad rabtaa insha allah iminkana taas ayaanu guda galaynaa insha allah hagaag saaxiib waxaan samayn doonaa markaa codkayga ayaan soo jiidaa kadibna waxaan keenaa codkayga booskiisa ayaan keenaa si aan uga saaro markaa codkaan buuq haddii uu leeyahay ama hoon gaari oo kaa geera aan uga saaro codka ayaa dul tegaysaa aarti inaad buuq ka saartid kadibna waxaa leedahay double click markaad tiraahdo shaashadan marka uu kusoo furay interfacekan qaybtan ay ku qoran tahay remove background noise meesha ay ku qoran tahay ayaad waxaa saari doontaa checkta halkaas markaad checkta saartid codkaaga wax allaale wixii buuqa waa ay ka bixi doonaan bal markaan ila dhegeyso codkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal marka horena sidoo ahay daawadayaal meel kastoo ka joogtiin dunida idaafeeda magacaygu wax magaag waxaa ujeeda hadda wax isbedela gaara ma aysan soo gelin walow aniga marka hore codkayga aanan kusoo duubin meel buuq badan ama maaragtay wax waxaan uu ka jira aanan kusoo duubin oo meesha aan kusoo duubay ay ahayd meel macquula ama maaragtay buuq badan oo iska jira saaxiibayaal waxaan filayaa in si fiican leela fahmay qaabka muuqaalka codka looga saaro qaabka loo saaro background music iyo sidoo kale qaabka muusiga looga saaro waxa la yiraahdo noiska saaxiibayaal tirinta gaar doona casharka xigana waa dhammaantiin idin leh isma dhaaf